عليكم ورحمة الله وبركاته. dadkii laga beer meel kastaan dunida dacaladeed ka joogtaan sida aad ogeedeen bariyahan waxaa ugu socday dagaal aad u weyn anigana aan aad u carooday tiktok dadka isticmaal muuqaalkayga anoo live ku jiro xitaa fadhigii ka dhacay qof aadan brambur iyo dad badan mustalfi ee wada joogeen daaqada wada saarnaayeen gabdha ila dhasho safar ka imaad xamar ka imaad joogeen alxamdulillah ana horta waxaan ahay qoftii dhibkii ogaanta soo martay lug ii gacan iga dhacday xaalad adag soo martay 12 bilood baan oohin ku jiifanay ku soo kacay alxamdulillah ana ilaa hadda dad ay daba taagan maanta aniga Nairobi markaa imaanay aan Nairobi soo aaday cid maanta aan dhahay cid hebel ku tiigso ama cid hebel kaaga horeyso cidna iiga horeeyna baa ilaahay ina iska tabakalay aan meesha lagu kurboodo waa laga haajira iska dhaha iska soo haajiray meesha lagu kurboodo waa laga haajira sidaas aan soo haajiray aniga inaan waashto wax yara ka dhinay maalmahan gudaheeda waayo soo waxay ku faraxsan yihiin inaan dharka tuurto masana aan waashto mararka qaar nolosha xitaa aan naca fahmaysa laakiin alxamdulillah waxaan isku celiyaa inaan ahay qof muslimad ah waxaan isku celiyaa diintii waxaan fiiriyaa waxaas dhaha farxiyoy oo haddana aan niyadeediiba aan qalbigeyga ku qawowsaday inta ii dhimana ilaahay qaboojiye nabi maxamed calayhi salaatu salaam khayru khalqillaahi maka wanaagsanta nabi maxamed waxaa dhibaateyn jiray sallallahu alayhi wasallam waxaa dhibaateyn jiray dadkiisa ehelkiisa dadka dad ugu dhow heer quraysh asigoo hadlaya waxaa la dhihi jiray waa beenlow adeerkiisa dhihi jiray been buu sheegayaa maxaa la dhahaa soo mar waliba dadka dhibka ku haya waxay ahaayeen ehelkiisa heer quraysh ugu dambeyn uu ka haajiray meesha oo maaragtay ishay ku dhashay ani marka nabi maxamed calayhi salaatu salaam kama fiicin waan ka hooseeya waayo khayru khalqillah xabiib malaayiin anaga yacni lama midinayn sabirkiisana ilaaha na siiyo aan dadkii dhibaateynaya horta waxaa lagu jiraa xilli arafadii barakeysneed bishii barakeysneed arafo yani soon la sooman yahay oo habeenkii la duceysanayo maalintii la duceysanayo yoomal carafa ani ilaahay baa waxaan ka baryay horta dadka soo dhibaatay ilaahay inuu iga celiyo waxaa kuu soo haray yani oohinta ani ooynayo qof yani waxaan ahay dhaawac ilinteeda ma celin karaane ama igu jeclow ama igu unac ama igu caay ama igu amaan oohinteeda haddii raaxa ku tahay ku raaxayso haddii farxad ku tahay ku farax haddii murugo ku tahayna yani ma awoodo ba inaan celiyaane hadda marka ani xilliga idii duwaayo muuqaalka waa maaragtay isheeg 3 saac habeenimo aan idii duubayo muuqaalkan waxaan rajeynayaa beri inuu soo gali doono 4 saac shukriya edit gareyn lahayd shukri way hordoosaa waxaan rabaa dadkani i dhibaateena horta ilaah baa idigu daayay dad shayaadiiniinsiyi baa jiro inay ku dabaajiyaan isku dayaay alla ka cabsiyaa la yiri iyo naag iska celis meel yaa naar ka cabsi iyo naag iska celis meel islama maraan waayo haddaan dhaha naag kastoo qaylis la qayli waxay ku dhahdo hadalkii ku tiraakiisa kara leh yani adduuyadeeda iyo aakhiradeeda uma roono ani waxaan ahay hooyo waxaan ahay aabo anaa intaasoo sano ilmihii soo korsaday qof nolosha dhan oo guri hormuud ah oo mas-uulka ah ilaahay mas-uul igaaga dhigay ilaah baana ii qoray wax kastoo aan soo maray ana horta waxaa umaleynaa maalinta hooy noqday ay ugu dambeys farxad aan farxadba maba helinba alxamdulillah laakiin mararka qaar waxaa isku celiyaa diintii iyo olaadeeda ubaxeegu quruxda badan markaa fiirsado isdhah waxaan dhan kaliga haddaa tahay maada mari lahayn laakiin waxaa maraysaa ilmaaga dhexdo dartooda ani waa dhibaateynaysiin waa daba taagantiin waa dhibaateysan yani aad ii gubteen laakiin ninkii idhibo ilaah baa dhibi doono ninkii idhibo ilaah baa dhibi doono aniga muuqaalkan caawaan soo gelinayo ay ugu dambeyn doona inaan barnaamijkiina aan ka hadlo masana idii soo jawaabo muuqaal
laga haayaa lacagaa lagu bixinaa kanaya la yeelaa alxamdulilah naagtaasaan ahay ilaah baa isharfay ilaah baa yacni cafiifad mu'minadoo dhowrsan ilaahay iga dhigay alxamdulilah yacni naag waxaan ahay 7 sano ku dhawaad farjigeedii xaaraan iska dhaaf xalaal isaga adkaato nin dhan bogaan ka qaadatay dadkii dhibaateynayo yacni isku dayaayo inay ceebahayga faagfaagaan ama ceebo aan lahayn ii keenaan waxaa ogaanaysin horta waa daalaysin farxii muuqaal ay leedahay inaad keentaan muuqaalkii aad iiga fadhiyaa inaad keentaan horta fahmaysaa marka waxaa idin leeyahay ma aqaano ani murugadeyda iyo jabkay hoogayga oohinteeda micnaha raaxa idii tahay dad lacagta idiigu siiyo ma aqaan lacag maa idiigu siiyaa ma bacrif nin bilyaneer maa jiro oo lacag idiigu siiyo oo yacni dhahaayo kaaliyo oo qom dhan lacag ku siinaya maa jiro macquul masane ma sheegi kari kaas daftarkiisa maxuu ku qasbi karo horta qof xanuunsan ahay iisoo duceeyo qof tiyaan ahay aada ogeedeen dhibkii soo martay anigna weli dhaawici way haayaa aniga qof caafimaad qabo meehi dharkayga aad arkaysaan waan dhex socdaa waan qoslaa mararka qaar dadkii aan dhex marayaa waa labisanaya laakiin waxaa ahay qof xanuunsan xanuunkaasna ilaah baa iga dhagi karo alxamdulilah inabadgeliya haddaa muslimtihiin inaa idhaafo aad baa ii kurbeyseen ani waxaan idii ballan qaadayaa inaan magaciina daba soo qaadin aanan idii ammaanin aanan idii caynin aanan afkayga daba idii kala qaadin ee inabadgeliyo tadaa marka waxaa arkay maalin kasta waad ooysaa waxaa dhahdeen shukriyaa ka ballan qaada oohin maalintaas shukri ay dhahaysay hooyo mardaba ha ooynin waan ooy waa ogtihiin ani ilinteeda ma celi kari ma aqaan ani xididka ilinta ma ay go-on ma sheegi kari waa ilinteeda ma celi kari intii ku raaxaysanaysaa ku raaxaysato ma fahmaysaa waa lay dhibaateeyaa ilaah baa iga soo wada meesha lagu dhibaateyna ilaa haddana waa lay taba taagaya codadkaa soo dhageysateen iyo codadka ka argagaxsan baa laga soo diraa laakiin ma aqaan waxay uga haystaan dadkan waxay ugu haystaan ma sheegi kari ilaah baan ku dacweynayaa soomaaliya markaa tini waa ka tihiin dadkii idaba taagan maalintaa dhibka ku jiray ee idaba taagnaayeen yacni markaa hadlaayo ma ilin ma celin kari baliis waa idii baryaaya musli haddaa tihiin nabadgeliyo musli haddaa tihiin meesha nabadgeliyo waa idii nabadgelinaya nabadgeliyo magaciina dabo amaan iyo caayin dabo ma iga helaysiin mar dabo mana idii amaana mana idii caayana go-aan waxaan ku qaadanayaa inaa idii ammaan gelinaa waayo caafimaadkeyga ku jiro inaa magaciina dabo aana soo qaadin amaan iyo caayabo caafimaadkeyga ku jiro ilmaa korsiga rabo maanta ciyaalkaas hadaa ka dhaca gurigan dhanaa mas-uulka ahay 4 dhaliyo walaashe baa mas-uulka ahay caaw haddaan dhaca yacni cid ii maqan ma laha ilaahay ahayn anigaa meelahay ku caraararo nolosheeda hadda waxaa isleeyahay Nairobi imaatay yacni suuqaaga dhexgal meel un waa ogtihiin dhuuntay xanuuneyso iska badan ma sii hadli karo bas musli haddaa tihiin nabadgeliyo waxaa qalbigeyga ku qaboojinaa mararka qaar nolosha dhawaana laakiin qalbigeyga waxaan ku qaboojiyaa inaa ahay qof muslimad ah qof muslimad inaa ahay waxaa qalbigeyga ku qaboojiyaa badkarna nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam in la dhibaateeyo dadkii dhibaateeyna ay ahaayeen dadkiisi xitaa kurba darteeda aayad kusoo degato isaga haajiray alxamdulilah ilaahay mahadoo dhan u sugnaatay waxaanoo dhan wax ii qoran waayo maaqaan maalintii
ilmadan ig istaagi doonto ma aqa maalintii yani si hadhi kara